السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkii shanaad iyo taxanaheennii barashada HTML iyo CSS. muuqaalkan waxaan ku eegaynaa ama isku arki doonaa waxa la yiraahdo formka. marka aad doonayso inaad daato aad soo geliso cusub oo aad backend-ga aad doonayso inaad daato u dirto waxa la adeegsadaa formka waxa laga yaabaa inaad meelo badan ku aragto ama aad ku aragtayba, sida tusaale ahaan marka formka loo yaqaano sign up-ka marka aad doonayso inaad ciwaan cusub aad ka samaysato website, iyo formka kale loo yaqaano login-ka. Okay, si marka ugu horeyn aan form u qoro, waxaan qori doonaa form element ayaan qori doonaa, enter ayaan siin doonaa. halkan aad ku aragtaan wuxuu raaciyay attribute-ka loo yaqaano action. attribute-ka imika anaga waxba uguma baahnin, laakiin marka aad laga shaqeynayo database-ka oo kale ama la dhisayo full stack project oo kale ayaa waxa weeyaan waxaa la geliyaa halka macluumada back-end-ga oo kale. tusaale ahaan database-ka marka loo dirayo macluumaadkaasi halka back-end-ga fileka back-end-ga uu yaalo ayaa la geliyaa. Okay, marka imika waxba uguma baahnin, sidaa ayaan ugu tegi doonaa isagoo empty ah ama eber ah. Okay, formka marka wuxuu ka koobnaan karaa inputs. waxaan isla eegi doonaa marka inputska ugu caansan ee la isticmaalo. waxaan ku horeyn doonaa inputka loo yaqaano text. marka tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inaad aragto input lagu leeyahay geli full name-kaaga ama first name-ka oo kale. si aan marka u qorno waxaan qori doonaa input, kadib waxaan raacin doonaa calaamadda, kadibna waxaad isticmaali kartaa waxaasoo types ayaad isticmaali kartaa. kuwa ugu caansan marka aan ka isticmaali doonaa imkaan waxaan qori doonaa text. waxaan doonayaa inputka typekiisu yahay text-ga inaan qoro, enter ayaan siin doonaa. marka sidaa ka muuqata muuqaalka wuxuu raaciyay 3 attribute oo kala ah typekiisu waa text, name ayuu raaciyay sidoo kale. nameka waxaa la geliyaa magaca inputkaasi uu qaadan doono si looga garto ama looga sooco inputyada kale markay noqoto back-end-ga marka laga adeegsanayo ayaana loo adeegsadaa si markaa inputyada kale looga sooco inputkaasi. iyo id-gana badanaa waxaa loo isticmaalaa iyagana marka aad back-end-ga aad ka shaqeynayso oo kale si inputkaasi aad u siiso magac isaga u gaara. Okay, attribute-daasi marka waxaan ku dari doonaa attribute kale oo isna la isticmaalo la yiraahdo placeholder. waxaan qori doonaa placeholder-ka marka waxa weeye inta aadan gelin inputka qoraalka kasoo muuqanayo. waxaana halka placeholder-ka waxaa loo isticmaalaa markaas si loo hago userka, loogu hago ama loogu sheego inputkan waxa loogu talagalay in la geliyo. salaam waxaan ku qori doonaa placeholder-ka first name ayaan ku qori doonaa, enter first name ama enter name baan raahdo, enter your name, save ayaan siin doonaa. haddii aan browserka nimaadno waad aragtaan browserka haddaan nimaadno intan kale marka codeka uma baahnin, waxaan iskaga qaban doonaa comment ayaan ku qaban doonaa. tusaalayaasha casharaanta horaan kusoo aragnay weeye. comment ayaan ku qaban doonaa markaa control // save ayaan siin doonaa. Okay, sidaad aragtaan markaa codeka intiisa kale oo dhan waxaan ku qabtay comment oo waxaan ka dhigay howlgab. Okay, input marka inta aan wax qorin ka hor waxaa ku qoran enter your name. markaasi userka si fudud ay ku fahmayaan in inputkan loogu talagalay in magaciisa uu geliyo. marka aan tusaale ahaan qoraal ku qoro, qoraalkii hoose ee placeholder-ka isma sixi doonaa. Okay, inputyada kale ee ugu caansan la isticmaalo waxaa ka mid ah inputka loo yaqaano email-ka. kan ayaan kobiyin doonaa, copy paste, kadibna halkan type-ka ayuun baan ka dhigi doonaa email. Okay, save and raado. sidoo kale placeholder-kana waxaan ku qori doonaa email, interior. email-kana wuxuu ka mid yahay inputska ugu caansan. Okay, inputyada kale la isticmaalo marka waxa ugu caansan inputka loo yaqaano password-ka. si haddana password aan u qoro, kan ayaan kobiyin doonaa, copy paste, kadibna typekiisa ayuun baan ka dhigi doonaa password. save and raado. halkana aan bedelo qoraalka, aan ku bedelo ama aan ka dhigo qoraalkan aan ka dhigo password, enter your password. inputkan markaa haddii inputyada kale wuxuu kaga duwan yahay haddii aan ku qoro tusaale qoraalka wuxuu ahaan doonaa qoraal aan password ah oo aan la arkayn. Okay, inputyada kale ugu caansan ee la isticmaalo waxaa ka mid ah checkbox-ka sidoo kale saan u qoro input ayaan oran karaa, kadibna labada dhibcood waxaan qori karaa markaasi checkbox. save haddaan siiyo checkbox-kan wuxuu leeyahay oo aad aragtaan haddaan save siiyo checkbox-kan waa kaa. sidoo kale waxaa ugu caansan inputyada la isticmaalo radio. kanunaan kobiyeeyo kadibna halkan aan ka dhigo radio, save. inputkaasna radioga ayaa inputyada la isticmaalo ugu caansan.
marka adigu intaad doonto ama intaad u baahan tahay isticmaali kartaa. waxaad isticmaali kartaa waxaasoo inputya ayaa kaa doonto ayaad isticmaali kartaa. checkbox, color, waxaasoo dhan ayaad isticmaali kartaa. kolba kaad doonayso ayaad isticmaali kartaa. inputyada la isticmaalo sidoo kale waxaa ka mid ah inputka loo yaqaano file, oo halka markaad doonayso inaad file soo geliso, halka fileka aad kasoo dooran lahayd ama aad kasoo gelin lahayd website-ka. tusaale imika wuxuu leeyahay no file chosen, choose your file. kadibna fileka marka aad click aad siiso wuxuu ku geyn doonaa computerkaaga, kadibna fileka ayaad soo dooranaysaa. imika tusaale haddaan file soo doorto, fileka magaciisa ayuu halkan kusoo dhigi doonaa. sidoo kale inputyada kale la isticmaalo ama waxyaabaha formka lagu dhex isticmaalaan raadee waxaa ka mid ah select. aan qoro select markaa waxa weeyaan inputyada badanaa markaad tusaalahaan form aad iska diiwaan gelinayso uu ku yiraahdo dooro dalkaaga oo kale tusaale ahaan ama genderka ayaa loo isticmaalaa. okay marka waxaan oran doonaa optionadii aan dooran lahayn soo gelinayaa option. okay marka attribute-ka value waxa loo isticmaalaa daatada waxa la geliyaa tagi doonta database-ka marka formka uu ku xiriirsan yahay backend-ga. halka daatada soo muuqanaysa ama waxa uu soo muuqanayo user-kana la geliyo open tag iyo close tag inta u dhaxaysa ayaa lagu qoraa. okay marka tusaale waxaan ku qorin doonaa oo kale waxaan qori doonaa choose gender. save and raado option labaad ayaan soo gelinayaa. kan waxaa ka dhigi doonaa male kana female. save haddaan raacdo waad aragtaa browserka marka waxaana leeyahay choose your gender. haddaan doorto tusaale male haddaan doorto maleka ayuu soo saari doonaa, haddaan doorto femalekana sidaas oo kale. marka imika waxaa naga dhiman amaan kusoo dari doonaa formka marka la bixiyo kale tusaale ahaan oo data la geliyo halkii submitka la siin lahaa batoonka submitka ayaan kusoo darayaa. si markaa batoonka submitka aan ugu soo daro laba hab ayaan ugu soo dari karaa oo kale ah in aan batoon qoro button kadibna aan raaciyo typekiisa oo ah submit, enter aan raacdo kadibna aan ku qoro magacii soo bixi lahaa save tusaale ahaan aan ku qoro. waad aragtaa sidoo kale inputka waxaad kusoo gelin kartaa input waxaad isticmaali kartaa submit la yiraahdo ayaad isticmaali kartaa. inputkan typekiisu yahay submit kaaya isticmaali kartaa. marka haddaan save iraahdo okay daatada soo muuqanaysana waxaad gelinaysaa value-ga dhexdiisa ayaad gelinaysaa. tusaale imkaan raahdo post oo kale baan raahdo save. marka wax farqiga oo kale uma dhaxeeyo badanaana waxa la isticmaalaa labadaba waa la isticmaalaa. okay formka marka inputska la isticmaalay formka kuwan ayaa ugu caansan. muuqaalkan maanta intaas ayaan kusoo koobayaa. muuqaalkan xiga intaan ku kulmayno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.